Bismillahirrahmanirrahiim. Kusoo dhawaada shabakada Sayax Teach. Waxaan casharkan kaga hadlaynaa sida hal PDF loo soo geliyo PDF-yo fara badan. Tusaale ahaan, PDF-kan ay ku qoran tahay shahaado. Waxaanu aragnaa in ay ku kooban yahay laba qaybood. Qaybtan koowaad oo ah fiiskii hore ee shahaadada, qaybtana waa transcription-kii caddeyntii. Haddaba sidee baa sidan oo kale la isku soo hosgeeyaa? Waa casharkeena maanta la soco. Halkan ii yaala laba PDF. Kan ay ku qoran tahay customer. Waxaan u baahanahay in shahaadadaas aan soo hosgeliyo shahaadadan halkan ku qoran. Iyadana kale APHT way ku qoran tahay. Waxaan rabaa labadaas inaan soo hosgeeno. Haddaba sidee soo hosgeeniyaa? Waxaan soo furayaa shahaadadan. Kadibna markay sidaa ay soo baxdo, waxaan dooranayaa meeshan ay ku qoran tahay insert. Waxaan dooranayaa meeshan ay ku qoran tahay insert baan dooranayaa. Kadibna waxaan dooranayaa meesha aan ka soo qaaday file 2. Kadib waxaan leeyahay open. Kadibna waxaan leeyahay halka waxaan ka dooranayaa after oo shahaadadan hoosteeda soo gelinayaa. Kadibna insert baan leeyahay. waxaanu aragnaa shahaadadani inay soo hoos gashay shahaadadii labaad. Kadibna waxaan sameynayaa waa si aan u save gareeyo, waxaan dhahayaa file. Kadibna waxaan dooranayaa save as. Waxaan u bixinayaa full shahaado. Kadibna waxaan leeyahay save. Waxaanu hadda aragnaa in ay si dhammaystiran shahaadadii inoogu soo baxday iyadoo labada dhinaca hal PDF file oo dhammaystiran ah. Casharkan wuxuu ka anfacayaa markaad u baahan tahay PDF fara badan oo ka kooban ilaa iyo 100 page inaad soo dulgelisid PDF kale oo aad mataqaan hal xabo oo PDF aad iskaga dhigi kartid. Sidoo kale wuxuu ka anfacayaa shahaadada markaad iskaan gareysid in shahaadadii labada dhinac aad hal file u samaysid. Kadibna aad sidaas ku save gareysid. Waxaan jeclahay inaad ka faa'iideysan doontaan.